haddii 12 bilood salaad khalkhalaynu soo tukanaynay ama jimce imaamkoo taaganuuna aynu soo fuulaynay soo gelaynay masaajidka aan isku dayno bisha tani inay noqoto bishii aynu tirtiri lahayn wixii camal inaga tegayoo dhan wixii dunuub inaga dhacday horoo dhan bil aynu tirtirro waxaynu ramadaan qabanno 2 shay baa ugu fiican mid waa inaynu dembiga iska maydhno midna waa inaynu darajaadka kor u korro ajarka aynu shaqaysayna inaynu badinno mustaqbalka u dhiganno dembigii hore inaad iska maydhidoo nadiifisid ramadaan waad awoodi kartaa inaad ajarka biirisana markaad intaa maydhana waad ziyaada yani dunuubaad shaqaysato na waad awoodi karaysaa si awgeed baa manaqabada ramadaan ajarrada ay leedahay waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiisulqudsiga wuxuu ku sheegay ilaahay baa wuxuu yidhi kullu camal ibni aadama lah reer nebi aadam oo dhamme camalka shaqaystaan iyagaa leh ila siyaamu mooyaane aw ila soonka mooyaane fa innahu lii waana ajzi bihi isaga anaa iska leh oo ka abaalmarinaya baa ilaahay yidhi dabeetana xadiiska wuxuu sii tilmaamayaa wasiyaamu junnatun soonku waa gaashaan dunuubta lagaga gaashaanto naar lagaga gaashaanto fa idaa kaana yowmu sawmi axadikum midkiin hadduu maalintiisii soonta joogo falaa yarfus yowmaidin walaa yaskhab yuu maalinta afxumo ku hadde oo yuu qaylinni hadday cidi ku caydana buu nebigu yidhi amase kula dagaalantana ajarkaaga ha iska dumine waxaad tidhaahdaa innii mur'un saa'im war waa soomanay ku dheh qofka ku caaya ama kula dagaalama innii mur'un saa'im ku dheh waaladii nafsu muxammadin biyadih lakhuluufu famu saa'imi atyabu cinda allahi yowma alqiyaama min riixi almiski walisaa'imi farxataan yafraxuhuma idaa aftara farixa bifitrih waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmih xadiidkan intaaynu u soconnaan ka danleey waxa weeyaan ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala bini aadamku camalkiisa dhammaantii isagaa iskale soonta mooyaane soonta se anigaa loo ka abaalmarinaya xadiidka macnihiisu isuu yahay see loo fasiraya fasiraado tiro badan bay culammadu sheegaan laakiin culamada badh baa waxay dhahdaan labada qowle sufyaan ibnu cuyayne baa ugu dhodhow weliba labadaa qowl mid baa nusuustu sii rajaxaysaa alimaam sufyaan ibnu cuyayna muxadidkii la odhan jiray sheekh imaam shaaficiy raxmatullaahi calayh sufyaan ibnu cuyayna baa wuxuu leeyahay 2 qowl laakiin ka saxa haddaynu iska qaadanno waxa weeyaan soonku acmaasha kaloo dhan bini aadamka iska leh waxaanay leedahay maxay ajrun maxduud bay leedahay ajar xadaysan bay acmaasha kale oo dhammi leedahay soonka mooyaane axaadiis baana saa caddaynaysa alaslu acmaasha xeer baa ilaahay u dhigayaa man jaa'a bilxasanati falahu 10 amhaaliha qofka xasanad samaysta waanu 10 laabayaa baa ilaahay yidhi xasanad kastoo aad samaysato 10 laabkeed ayaa ilaahay ku siinaya laakiin intaasi waa intaad xaqa alle kuu siiyey laakiin haddii ikhlaaskaagu bato meel fiicanay kuugu dhacdo xasanaadka qaarkood baa ka bato oo gaadha ilaa 700 700 oo jeer in lagu labalaabo 10 laab waa imisa haddii aad shilin la baxdo shilin kale lagugu daro waa imisa 100% soo maaha 10 laabku markaa waa 1000% asal ilaahay waa hani asal wuxuu inooga dhigay xasanadeennu 1000% baa u asala waa minimumka abtu waxay soconaysaa maxay 700 ضعف يعني 700,000% in lagu dallacdo shilinkaagii 700,000 oo shilin inuu gaadhi karo kow liman yashaa ayuu ilaahay u dallacaa wallahu waasicun caliimna weeyaan haddaba soontu waxay culimmadu leeyihin xeerkaa way ka baxsantay soonku xeerkaa way ka baxday oo xadiis saxiixa wuxuu leeyahay kullu camal ibnu aadam
يضاعف له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عمل كستو قفكو سميستو والله لبنلابيا 10 jeer ilaa iyo 700 jeer min fadli illaahi subxaanahu wa tacaala. soonka mooyaane baa layidhi. ama soonka isaga anaa iskale baa ilaahay yidhi, isagu waa gaar. isagu markaa culammadu waxay leeyihiin anaa leda idaafada tani waxay macnaynaysaa bay culimmadu leeyihin sirta ah inaanu iyadu ku jirin waxyaabahan uu xadaysan yahay ajarkooda ee ajarkeeda ilaahay ubaa garanaya. walidaalik baa mufasiriinta qaarkood waxay ku fasiraan aayaddan qur-aanka ee ilaahay leeyihi innamaa yuwaffi asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab. shahru sabrina waa la yidhaahdaa, shahru soonna waa la yidhaahdaa. oo dee sabir dhammaantii buu qofku la imanaya inuu can ilmacaasi wa can ishahwaat ka soomo, inuu cala taacaati ku sabro, iyo wixii mashaakil iyo aalaam iyo maqaadiir soo gaadha inuu ku sabro. haddaba bisha tani waa bil aan rabno laba wax inaan hello. kow in ilaahay dembigaaga dhaafo. hadda maaha inaynu iyada dembi kororsanno. dadka qaar baa bisha tan musalsalaad iyo balaayo bishii uu dembiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba. ma aha bil uu qofka bini aadamkahay kaslaan noqdo. bilaad marna hurudown marna ma aha. waa bilu qofka muslimka ijtihaadu ku jiro. waa qofka muslimkaah waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayaya inuu gaadhsiiyo. muxuu rabaa? wuxuu rabaa in ilaahay dembiga ka maydho. wuxuu rabaa ajar inta ugu badan leh inuu shaqaysto. wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoraynaya. habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bisha tan oo dhan. wadaaka fii kulli leyla buu nebigu yidhi. habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya. inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyey ee inaad dembi kororsato maaha. walidaalik baa caaisha markay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddiiba ilaahay uu haleeshiiyo aan ku beegmo habeenkaasi leylatulqadriga ah maxaan idhaahdaabay ku tidhi. nebigu wuxuu yidhi waxaad tidhaha allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa faafu canna. ilaahu dembigayga rogne, ilaahu cafi. waxaad ku ducaysata habeenkaasi ha noqoto buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ilaahu cafi. bisha tan cibaadaadka la sameeyo culammadu waxay yidhaahdaan markaa cibaadooyinkeedu uma dhigmaan xataa cibaadooyinka bilaha kale la samaynayo. walidaalik baa matala nebigu wuxuu leeyahy cimrada la cimraysto ramadaan gudaheeda tacdulu xija oo fii bacdi riwaayaat xijatun maci. ramadaan inaad soo cimraysataa xaj bay u dhigantaa xagga ajarka marka la eego nebigu tilmaamaya, ama xagga dembi dhaafka ama weynida xaj bay u dhigantaa baa leeyahy. riwaayaadka qaarkood baa weliba waxaa leeyahy xaj aad nebi maxamed la xajtay. xaj oo dhan maaha. xaj aad wadaad yar raacday maaha. xaj aad nebi maxamed la socotay ayay u dhigantaa. haddaba waxaan leenahay ayuha alaxiba, bisha tani waa bil uu qofka muslimka ahi training galo. waa koors uu qofka muslimkii tadriib ku qaato. tadriibkaasi kow wuxuu salaynayaa inuu uskaga iskaga maydho. gaalnimada iyo dunuubta oo dhammi waa najas, waa najaasat alqalb. kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun baa ilaahay tilmaamaya. qalbiga waxaa daxaleeyey maa kaanuu yaksibuun. uskagoo dhan inuu qofku iskaga maydho waa waxa koowaad. waa marka labaadee naar inuu ku xoroobo. waa marka saddexaadee inuu ajar helo. waa marka saddexaadee waa bil uu takhyiirkaba suurtagelli qofka muslimkaa inuu noloshiisa beddelo. waxyaaba bini aadamka ugu adag ee noloshiisa ka mid ah cunooyinkaa ka mid ah. cunnadaadii baa la raray. wakhtigaad wax cuni jirtay iyo wakhtigaad seexan jirtay iyo wixii oo dhan baa la beddelay. idan haddii waxyaabihii faastka ku ahaba la beddeli karo, everything noloshaada ku tacalluqa waad beddeli kartaa. you can change. balwad ha noqoto, caada xun ha noqoto, dembe ha noqoto, wax kasta oo nolosha ku tacalluqa
waxay dhahdaan culammadu bisha tani waa shahrun litagyiir gebigeedba waa sistamkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto balaan cusub inaad degto oo ah saad u xoroobi lahayd ee naf iyo shaytaan uga xoroobi lahayd walidaalik baa waxaa la beddelay wakhtigaad wax cunaysay waxaa la beddeloo la cidhiidhiyey wakhtiyadii waxaa la kordhiyey wakhtiyada cibaadada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam acmaal gaarah jirto uu bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow dee isagu waa ramadaan waa wada garannay iyada in la soomayo waa garannay waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa bishuu malakul jibriil qur-aanka la daraasayn jiray malakul jibriil baa u yimaada nebi maxamed iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle ilaahay hadalkiisa idan bisha tani bay culammadu yidhaahdaan waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadabburo ilaahay kitaabkiisa oo fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa inaan sameeyo waa aakhiru wathiiqa samada ka soo degta oo bini aadam lagu saxayo aakhir hidaaya absolute value bini aadamka loogu talagalay noloshiisa oo dhan inuu ku balaangaraysto ka warran madaxweynaha waddankani ama ra'iisul wasaaradda waddanku hadday waraaq ku soo dirto maalin walba aad akhrida laakiin weligaa aanad fahmin maxaa lagu odhanayaa qofta yaraa khabal waxay u dhiman yihiin baad u ekaanaysaa waraaq adiga dantaada ka hadlaysaa oo kuu soo degtay oo aad gacanta ku haysato oo weligaa aad akhriyaysuuna aad fahmaynin inaynu qur-aan dhan fahamna daaye faatixadayna fahm weyn maalin walbana 17 jeer akhrino idan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bishan wuxuu mudnaan gaara siin jiray qur-aanka iyo akhriskiisa qur-aanka iyo daraasayntiisa walidaalik baa culammadii waaweyneed ee muslimiinta rag ka midii xataa culumta kale ay dhigi jireen way joojin jireen ragga badh baa culumta kale ay dhigaan oo dhan imaamu maalik oo u soo xidhxidhan jiray xadiidka nebiga siduu u dhigayo waxay dhahaan bisha tan culamo badan baa cilmiga kaloo dhan joojin jirtay oo waxay odhan jireen bishana waa bishii qur-aanka akhriskiisa badiyaan imaamu shaaficiya waxaa laga sheegaa dee waxaynan inagu hawaysanaynin inuu bisha 60 jeer qur-aanka dhammayn jiray soo naqliya idan bishani waxa koowaad innagana waxaa laga yaabaa imaamka jis ku tukiya in la yidhahdo masaajidkaas waa masaajid salaad badan oo muxuu sameeyaa jis qur-aanuu ku tukiyaa waxaa laynaga rabay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam habeen buu salaad galay dabeetana saxaabi baa u yimi wuxuu shiri iskaga xidho waa kadee nebigiiba tukanayey waa ku xidha dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam faatixadii markuu ka baxay buu albaqara bilaabay waxaan sidhi buu yidhi dee kolley 100 aayadood meelahaasuu akhriyi doonaa waa dhaafii albaqaroo dhan buu dhammeeyey buu yidhi waa 286 aayadood waa 2 jis iyo dheeraad albaqaroo dhan buu nebigu dhammeeyey buu yidhi haddana albaqra marka uu dhammaynayey ayaa sidhi buu yidhi bese dabadde hadduu rukuuci doonaa suuratunisaa buu bilaabay buu yidhi markaasuu iyana dhammeeyey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaan sidhi buu yidhi hadduu iska rukuuci doonaa markaasuu aali cimraan zib ka bilaabay buu yidhi haddana suuratu aali cimraan buu dhammeeyey waa 5 jis iyo dheeraad ayuu hal ragca akhrinaya intaa waxaa ka mudan weliba wuxuu leeyahay aayad cadaab muu soo marin ilaa ilaahay buu ka magan gelayey meel tasbiixa muu soo marin ilaa wuu tasbiixsanay yacni qur-aan la leeya maahan qur-aan lagu tadabburayo la fahmayo wuxuu sheegaya laga jawaabayo oo aha isagoo salaadda ku jira markuu tasbiixaad iyo xamdalo soo maro uu tasbiixsanayay markuu soo maro cadaab iyo wax la mida uu ilaahay ka magan gelay markuu nimco iyo janno iyo wax la mida soo maro uu rabbigii weydiisanayay hal ragcuu ku tukaday hal ragco ayuu 5 jis iyo dheeraad akhrinaya حوالي إذا النبي عليه الصلاة والسلام رمضان تودميسي لبا جير بو لدمي قرآن كاخ دراسديسي ولدمي كما ملك الجبريل إذا بشطاني وابلو قفك مسلم كي أحد حدو ورب الإلهي وركي سفاه مرتا ربي وحا وكوش يغيو رب السماوات والأرض يا أديك كلها الله بالذاتك
dadka qur-aanka markay akhrinayaan cid kale ka fekeraan, cid kale ka fekerin. Adigun baa ilaahay la hadlaya, qof walba gaarkiisa loola hadlaya. waxyaabaha bisha tan uu aadka u qaban jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ama muslimiinta uu faray waxaa ka mid ah dee qiyaamu leylka, taraawiixda, salaada badan ee la tukanaya inaad salaadaha badsato. waxyaabaha la isfaray waxaa ka mid ah bisha tan aadka loogu dadaalayo oo nebigu samayn jiray atasaduq, sadaqaadka. inaynu inagu wax cunnaa baynu badinay inaynu dadka wax cunsiinno. sidaa awgeed ayuu saxaabigii muxuu lahaa, nebigu wuxuu ahaa mid deeq badan. dee asliyan baa nebiga caadadiisa waxayd weligii wax la weydiiyey maya ma odhan. aduu balqiyaas qof wax la weydiiyey aan maya odhanin. weliba dadku isku mid maaha. markaan dadkaba cidi kaa dhex aqoon aad meelaha hagaas ka joogto, cidda kugu soo beegmaysay wax ku moodaysaa dee waa dad yar, aan yaroo qaraaba iyo 2-3 saaxiib ahaydeen cid kale bay wax ku weydiinaysa. laakiin ka warran haddaad dad madaxdood tahay oo weliba aanad askar iyo cid ku ilaalisa lahayn, oo weliba hadduu madaxweynuhu 5 salaadood halkan inagula tukado oo cid dadka ka celinaysa aanay jirin, imse qof baa wax weydiisan lahaa. so qof weliba dantiisa kulama soo dhaqaaqeen isma yidhahdeen waa madaxweynihii. ka warran hadduu rasuul ilaahay yahay, rasuulkii ilaahay oo dadka dhex jooga waan meel laku maqnayn oo 5 salaadood ba la arkayo, oo haddana weligii wax la weydiiyey aan maya odhanin. wax la weydiiyey aan qatu maya odhanin. haddana isagoo sidaas noloshiisu ahay ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fii ramadaan. bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa. intuu bishaa bixiyo way ka gedisnayd. waxbixintiisu ka riixil mursala bay ahayd buu xadiidku tilmaamaya. sidii dabayl dhabanaysa, dabayl babanaysa ama dhabanaysa ayuu la mid ah. yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu way furnayd. bisha tani waa bil markaa dadka muslimiinta ee takaaful ijtimaaci isu naxariista, foqorada wax la siiyo, masaakiinta wax la siiyo, qaraabada la xidhiidhiyo, tolka la xidhiidhiyo, cid walba wax la siiyo. yaabuu nebigu bishan samayn jiray waxaa ka mid ah iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray. marka horeba bisha cibaadadaa lagu jiray, haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhahda samayn jiray. 10 maalmood 20 maalmood oo ictikaaf ah. ictikaafku waa maxay? waa inuu qofku masaajidka isku xareeyo aanu dib uga bixin ilaa lidaruura, inuu ama masquul tegayo ama cunno la siinayo, wax allaaliya wuxuu ka maarmi karo inuu ka maarmo, albaabka masaajidka inaanu istaagin. oo markaa masaajid gudihiisa maxaa laga qabanaya? dadka badhba intay ictikaafka ku soo xaroodaan hurdo uun, haddana hurdo looma soo xaroodo. hadaad seexanayso gurigaaga baad seexan lahayd. waxaa loo soo xaroodaa in cibaadada la maximize gareeyo. bishii waa sii dhammaanaysaaye 10ka dambe inaad goosato. markaa the last days baad ku jirtaa. 10ka maalmood ugu dambeeyana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ictikaafi jiray. markaa ictikaafku macnaheedu waa maxay? xaaraan iyo baabkaa ka kaalaya mubaaxaadkii iyo xalaashii buu ka tegayey. xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegayo ajar ka weyn uu raadinayay. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay ninku gabadhiisa markuu u tago hadduu xalaal ugu tago ajar baa loo qoraa, siduu xadiidka nebigu sheegayay. laakiin 10kan maalmooda dambe maca dumarka waa laga fogaanaya. walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid baa ilaahay. haweenkana ha la dhaqmina idinkoo ictikaafsan baa layidhi. idan 10kan maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jarayaa. wuxuu u fasax qaadanayaa inuu umuurta aakhiro oo qura bishan ka shaqeeyo. inuu 10kan maalmood umuurta aakhiro oo qura uu ka shaqeeyo. waxyaabaha bishan ku badnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa, ilaahay baryadiisa. walidaalika baa aayadda ducada ugu khaasaysani waxay ku soo aroortay maxay? fii wasati aayaati sawm. waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan faliyu'minuu bii waliyastaqim. aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruuhunna waanta aayaadka dambe ictikaafkii ka warramaya soonka. aayaadkii soomkee kalena waa ka horreeyaan. idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay? waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka. walidaalika culimmadu waxay dhahdaan waa astaan tilmaamaysa
khusuusiyada ay dacwadu baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda. daba ayuha alaxiba, ilaahay wuxuuna leeyahy waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun. kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin markii la yidhi ayaa haddana waxa yidhi waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun. adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumuu, soonkaa idiin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala, haddaa wax garanaysaan. haddaba ayuha alaxiba, warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan soo socota in shaa allahu tacaala. diyaargarowgeennu ha noqdo sidaynu ilaahay ugu noqon lahayn, rabbi ugu xidhmi lahayn, aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn, iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn, janno ilaahay u weyddiisan lahayn oo u geli lahayn. bisha tani markaa ha noqoto daal badani waa inuu kaa muuqdaa oo ah fa idaa faragta fansab. ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bilka islaamnimo badan aynaga muuqato laziness, bil aynu qaadna maaha, bil dadku caajiso waan soomanay qof walba idhaa nafta ka sii baxdo, ee waa bil aad u baahantay, waa tababar baad gelaysaaye 11 biloodoo dambaad u sii sahay qaadanaysaa, 11 horena dembigoodaad iska maydhaysaa. waa bil aad u sii saha qaadanayso, cafaariiddii waaweyneed ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaataye saad isaga celin lahayd. haddaad traininka ugu sii jirtaa ibliisaanu dibkuugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii. idan haddaad bisha lafteedii dayacanto dee waad wada dayacmaysaa. saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy man xurima khayruha faqad xurim. ama uu aamin u leeyahy jibriil oo leh ninkay ramadaan u soo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yugfar lahu, wuu leeyahy afka ciidda ha daro. nebi maxamedna wuu aamiin leeyahay. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inta gaadha bisha tan ee asiibtay ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhowaata in rabbi inaga yeelo. sala allahu calaa muxamedin wala aalihi wasaxbihi wasalam. alxamdu lilah rabbil